حبضة تنت ماشي ده كدوب انتهي كسوقش تنت ماشي كدوب انتهي وحين كبحد كوف أنا marka ma dhihi kara cunta ila isdish cunugteedu waa la dilay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halkani sidaad u jeedaan waxa lagu aasayaa Rumaan Abdul Qaadir oo ahayd gabar 14 jir ah oo dilkeeda warar kala duwan ay ka soo baxayeen waxa inoo suurta gashay in aynu la hadalno qaar ka mid ah ehelkeeda kuwaasi oo aanu ka wareysanay sida ay wax u dhaceen waxaana idin soo gudbinaynaa sheekooyinka ku saabsan dhacdada Rumaan ehelada gabadha dhimatay iyo ehelada ninka la sheegay inuu dilay ayaa ka qayb galay aaska marxuumadda heshiis ayaa la sheegay in laga gaaray ka hor inta aanan u gudbin xogta ku saabsan in laga heshiiyey xalka mashaqadii ay ku geeriyootay Rumaan Abdul Qaadir aan idiin soo gudbino xogo ku saabsan dilka gabadha qaabkii uu u dhacay iyo hordhaca baaritaanadii la sameeyey Rumaan Abdul Qaadir waxay ahayd 14 jir warar kala duwan ayaa saacadihii la soo dhaafay ka soo baxayay geerideeda oo sababsatay xabad ka dhacday bastoolad Rumaan oo maanta lagu aasay goob aan sidaasi uga fogeen guriga ayeeyadeed ee degmada Dharkeenley waxaa guriga habaryarteed oo ku yaala suuq bacaad Yaaqshiid ay u joogtay qaraabo salaan waana halka falku uu ka dhacay warar goor sii horeysay soo baxayay ayaa sheegay in xabadda ay isku fakisay xilli ay ku jirtay jiliinka duubista muuqaal TikTok warar kale ayaa sheegay in ay fiirinaysay bastooladda kadibna ay isku fakisay maxaa ka jira in iyada oo ku jirta jiliinka muuqaal TikTok ay xabadda isku fakisay waatan Raxma Xuseen Nuur oo kamid ah ehelada marxuumad Rumaan gabadhana dadka hadda kulay sida ciyaalka yararka laga dhaadhiciyay iyo sida dadka guriga jooga gabar kale oo guriga joogto waalid oo yara joogto iyada wax yar aan ka roonayn waxa laga dhaadhiciyay waa gabadha inay isdishay gabadhana ma isdilin qof kasto aqli la amba damiir la amba danimo la sheegi karto qof taakada hoosteeda xabad iskaga dhufan karto ma jirto gabadha waa la dilay si foolxuna loo dilay ninka dilana bistooladiisa ka dul qaatay wuuna ka tagay kulay lama soo qaban laakiin waalidkiisa waxay sheegeen ee qirtaan inay dileen ayaga gabadha waa la dilay gacanka xaq darana dishay ina idinkana aad fiis ku raadsataan aad wadada inta noo soo dhigtaan aad tiraadaan gabar yar oo TikTok iska duubayso niinkinaysa isdishay aad iyo aad uga xunnaay ehelada marxuumad Rumaan ayaa aaminsan in la dilay gabadhooda isla markaana nin ay sheegeen inuu xabadda ka dhacday bastooladda uu ku dhuftay maadaama xabadda ay ka soo gashay qaybta dambe ee madaxeeda kana baxday foolka hore iyo sida lagu ogaaday baaritaano ay sameysay laanta dambi baarista ee CID-da Nali Xasan waxa ay ayeeyo u tahay marxuumadda dilka loo geystay waxaana lagu soo jawaabay Facebook la soo dhigay in cunugteeda falxumo ee baxaatay ku dhimatay oo ina isdisha lagu soo maxaa la soo dhigay ha isdisha muxume qof ma gadaal iska dili karto hore qofta hore waa iska dili kartaa laakiin gadaal ma iska dili kartaa waa maya dhibaatada oo maxay maanta ay haysato oo rag noo geysteen waxaan ka baryaynaa in Ilaahay masiibo ka soo rido xabadda tinta meesha ka duuban tahay ka soo gashay tinta meesha ka duuban tahay waxayna ka baxday koof anahan marka ma dhihi kara cunta ila isdish cunugteedu waa la dilay ehelada marxuumadda ayaan hor dhignay su'aal ahayd haddii ay jireen wax ka dhaxeeyay iyo in kale kulay wixii lagu dilay anaga hadda waxaan ognaa ma aha gaba wiil oo xaafadda wax ka degan oo imaanayay waaye guriga ma deganin laakiin guriga dad dirsnimo u soo galayay gabadhana waa gabar yar oo guriga xataa markaas aysan waalidkeeda la joogtay ma ahana guriga muddo badan ay ku noolay ehelada gabadha la dilay iyo ninka la sheegay inuu dilay ayaa heshiis ka gaaray dhacdadan nabadoon Abdul Qaadir Ibraahim oo adeer u ah gabadha ayaa warbaahinta u sheegay in dhacdadan laga heshiiyay isla markaana wiilka dilka geystay ehelkiisa ay qirteen dilka gogolna lagu xalliyo wixii dhacay waxaan leenahay eheladii ay ka baxday marxuumadda Ilaahay ha u naxariisto meel walba ay joogaan dadka Soomaaliyeed oo dhan waa tacsiyeeyay tan kale gabadhaas tacsiyedeeda dhibtaas oo ku dhacday si fool xun oo gabadha inta la dilay haddana la yiri maxay ahayd aniga gabadha lama dilin ayada isdishay aad baan ugu xunnahay waa ka xunnahay waana fool xumo waa cambaaranina waxaan ogolnahay ama ogolaan doonno maaha asa ahaatee wax walba muhiimadda markii laga raaco gabadha meydka ah waxaan saakay ku xabaalnay gurigeedii runta ahaa oo aan geynay waxaan u geynayna wixii maaragtay ehelada ninka falka geystay eheladiis ayaa nala heshiisay oo nagula heshiisay gabadha inaan aasno
wixii dhib ah meesha ka dhacay anaga geysanay gabadha anaga noo duugaya waa adilnay wax saas ah maartay aan ku heshiinay waa ku wada hadalay hadda fadhi odayeed hadda heshiis hadda labada been oo waxa ninka wax dilay iyo gabadha dhimatay oo heladeedu anaga kullaba hadda waan is aragnaa hadda waa is afgaran waxba isku afgaran inaan odayaal ay iska arkaan haddii wax la isla qaadan karan waa la isla qaadan haddii la isla qaadan waayna waa dalka dawlad buu leeyahay oo sharci baa ka jira ehelada ninka dilay marxuumadda ayaa iyagu ka gaabsaday in ay la hadlaan warbaahinta ilaa haatan ma cadda sababta keentay in ninka xabadda uu ku dhufto marxuumad rumaan mana jirta ilaa haatan wax war ah oo ay soo saareen booliska Soomaaliya gaar ahaan laanta dambi baarista ee CID-da oo ku saabsan kiiskan. Zakariya Ahmed Muuse TV Shabeelle Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagaha